dunida waxaa ka jira dalal lagu yaqaano dhaqaalahooda, kuwo kale waxaa lagu yaqaana taariikhdooda ama dhulkooda. laakiin waxaa jira hal dal lagu garto wax aad uga duwan dhammaantood. dalkaas waxaa lagaga hadlaa in ka badan 800 luqadood. markaad hal tuulo tagto waxaad maqli kartaa luuqad, markaad u gudubto tuulada xigta waxaad maqli kartaa luuqad gebi ahaanba ka duwan. sidee ayay hal dal ugu jiri karaan luuqado intaas la eg? taasi waa sheekadan Papua New Guinea. Papua New Guinea waa dal ku yaala waqooyiga Australia, kuna dhow badweynta Basifiga. dalkani wuxuu leeyahay buuro dhaadheer, kaymo cufan, webiyo waaweyn iyo jasiirado badan. qarniyo badan dhulkan adag ayaa bulshooyinka kala fogeeyey. bulooyin badan ayaa buuraha, kaymaha iyo biyada ku kala go'doonsanaa. ma jirin waddooyin fudud isku xiraa, sidaas darteed bulsho kasta waxay muddo dheer samaysatay nolol iyo dhaqan u gaar ah, waxayna la timid luqad u gaar ah. sidaas ay Papua New Guinea u noqotay meel ay ku nool yihiin 100 luqadood. laakiin waxaa jira su'aal kale: haddii dadku ku hadlaan luqado kala duwan, sidee ay isku fahmaan? halkaas waxaa muhiim ama ay ku hadlaan Tok Pisin. waa luqad ay dad badan isticmaalaan marka ay isku fahmayaan, gaar ahaan dadka kala yimid bulshooyin kala duwan. waxaa sidoo kale dadka looga hadlaa Ingiliish iyo Hirimutu, laakiin tuulooyin badan luqadda hooyo weli waa qayb muhiim ah, sababtoo ah luqaddu ma aha erayo keliya, waxay xambaarsan tahay taariikh, dhaqan iyo sheekooyin awoowayaasha ah. laakiin maanta qaar ka mid a luqadaha yaryar ayaa sii dabar go'aya. markay luqad luntana erayo keliya ma lumayaan, waxaa luma sheeko, dhaqan iyo qayb ka mid a taariikhda dadkaas. Papua New Guinea ma aha oo keliya dal leh luqado badan, waa dal ay ku nool yihiin 100 dhaqamo iyo 100 sheeko. hal dal in ka badan 800 luqadood iyo kala duwanaansho aan meel kasta dunida laga helin. Papua New Guinea waa meel ay codadka dadku noqdeen maktabad nool.